هذا حنقول يا فضيلة الشيخ مصطفى حاج إسماعيل قيبتي لواضع حديثك واتبع السيئة الحسنة تمنع فليتفضل مشكورا سنة شرعي توفق يقول بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام حديث كسوحة وكنت المامية حمه هدو كاردعو وانا كدبك وترتر اياه إنسان كسيدي سبب وإنسان straight line وما صعده قفك بني آدم كان نولوشيسو انت بدأ الزقزاق قرية هصبه وصعده waxaa waajib laynaga dhigay furuudul caynka inaynu ilaalino marka meel ka sarreysa inaynu istaagno si zagzaggeenu markuu dhaco aynan u hoos weydaaranin sunan tiro badan baa laynoo jideeyay marka waxaa laynaga mamnuucay waxyaabo mamnuucaat ah iyana waxa lagu xeeray waxyaabo makruuhaat ah saanad kuwa hoose u gaadhin si bini aadam baa tahay haddii qaladba kaa dhaco إله غفور رحيم ما جرى وحلينا فري مركها إنه وانا كدبق إنه السيئة كستوينا قد عضا وانا قاس باتر تريا واحد هذا العلماء ذهاب السيئات أو إذهاب السيئات لبقى بيود عضا ميدي وحوي يعني أنا أدمرك هربا كدعين إن أدمرك هربا كدعين وحيابها كينا وحكم إذا حسنا دوات بتصطه وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كمركو صلاة الماميو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بلي وحي كار ريبسا إن أتفحشي منكر كل عضو يعني السيئة دي كهر تقيسا إنت ريدي عنبا وحي إلهي سبحانه وتعالى قرآن كينا قلت المامية dhaqanna bini aadamku uu leeyahay oo cidda qura ka badbaadaa ay tahay musalliinta iyo sifaadka la socda kuwa Ilaahay ku sheegay inna al-insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a bini aadamku baa la yidhi sifada halu'a la yidhaahdo leeyahay oo ah khayrku markuu helana waa mid ku dhago aan sii daynin oo waxba bixinin dhibtu markay qabsatana waa mid cataw iyo calaacal badan marka labada dhanna kuma fiicna keeba ka badbaada xumahaasi illa almusalliin baa ilaahay yiri dabeetana sifaad baa ilaahay soo taxay xagga dambana waxa lagu gabagabeeyay kuwa salaadooda xifdiya idan salaadu dhaqan xumadaasay marka horeba ka ilaalinaysaa waxay yiraahdaan ahdigii nabiga saxaabada nin baa la sheegay salaada habeenkii uu ku cijiray salaatul layl laakiin wali haddana gacantiisu wax yara qaadi jirtay markaasay ka warrameen oo waxay dhahay ninkani habeenkiina waa tukadaa waxna waa yara qaadaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam inna salaatahu satanhaa sidaa aad sheegaysaan hadday jirto salaadiisaa ka reebaysa waxay leedahay marka xasanadu marka koowaad hadday xasanaadkaagu fiican yihiin sayi'aadka way kaa ilaalinayaan haddiiba ay kaa dhacdana sayi oo dhan xasanaad tirtirta laakiin xasanadu waxay ku xidhantahay sayi'adu nooca ay tahay oo maalan xasanatu tawxiid dee waxay tirtirtaa shirki iyo wixii ka hooseeyey oo dhan markuu qofku tawxiidsado gaalnimadiisa iyo wixii ka horreeyey oo dhan buu ka baxaa xasanatu tawba waxay tirtirtaa kabaa'iru dunuub إن الإسلام يهدم ما قبله وإن الهجرة تهدم ما قبلها إن الحج يهدم ما قبله النبي الإمام عليه الصلاة والسلام إذن حسنات كالنوع عاصي يا هديتي التوحيد أما هديتي حسنة التوبة وحي ترتيران سيئة الأمان تيدورن حسناتك إنت كهوسية هدات كبائر تكدركته إذا اجتنبت الكبائر أعماش عادية إنه سمين إنما سيئات كيريرون ترتيرا سيدي علماء التلماما
وواكي نبي تلمامي عليه الصلاة والسلام صلاة إلا الصلاة ومكفرات لما بينهن انت ودا حيسي ترترتا جمعة إلا جمعة انت ودا حيسي ترترتا صون إلا صون انت ودا حيسي ترترتا إذا اجتنبت الكبائر بالنبي هدي كبائر تلقى دركوه وهي وحي علماء انت بداني لهذان كبائر الطوبات بيوبا هانت هلا جاي بين السؤال سويديسو والصلاة إلا صلاة هدي ترترتي والصلاة ولبا انتي كهر ريسي ترترتي جمعوه أسبوع محو ترتري مركا عصو هاري وهدي اللي هذا جمعي إلا جمعو ترتريا محو ترتري دون تار رمضان علينا أعماش إنو سمينا كلها موضة حوق بدنا أما مقبول موضة هوا مثل النبي عليه الصلاة والسلام وحتى المامية صلاة إنو تكنينو مدبا صلاة ديسة تصعها الله أقبل ثمونها سبوعها سدسها خمسها أيو نبي سوودي إذا سفك وكودي جرنا صلاة دي مغرب لكن واسكبا يرتي 100% لكن لقى أقبلي وحلقا يابا 10% 12% دي 12% مركا الدم بقاد ما أنتو دلدل يسمو وضا ترتري كرتو إن شاء الله تدنبا انتهدي لغو كردينية marka waxoogaga jaaba aad la timi marka la isku dardaro waxbay nadiifin hadii wax ka soo hadhaan jibcihi baa nadiifin hadii wali wax ka soo hadhaan oo aan wali waxa waanay sayaadkaaguna de iska tira badayay waayo dhagtiya afka qura hadaynu eegno waagu markuu bariyo ilaa ya intaad ka seexanayso waxay u badan tahay inaad ama hadlayso ama mid hadlaya dhageysanayso intee ba khayraad u malaynaysaa marka waagu saaka markuu ku bariyaad soo kacday ilaa ya caawa intaad ka seexanayso ama adaa hadlayay ama mid hadlaya dhageysanaysay ama TV dhe ama WhatsApp dhe ama waxa doonta dhe intee ba xasana ase intee ba sayi'ad baad u malaynaysaa sayi'adku marka waxba yaryaraysanayso soo dhan adigu wadaad baa too wallahi shantiina waa tukataa meelahana waad iska fiicantay maanta ba waa daldalmaysa waxa sheegaysayna khayrku kuma badnayn إذا waxaynu u baahannahay inaynu aqli soo jeeda yeelano ku dadaallo inaynu sayi'aadkeenu waa tiro badan yihiin inaynu xasanaat tiro badan ka dabageyno ilaahina waa ka tilmaamaya illa man taaba wa aamana wa amila amalan saalihan fa ulaa'ika yubaddilu Allahu sayi'aatihim hasanaat kuwii toobad keenay ee iimaan laga helay ee amal wanaagsan sameeyay kuwa ilaahay wuxuu leeyahay sayi'adoodii hore qabla islaam sameynayeen ilaahay wuxuu ugu bedelayaa xasanaat haddaba qofnaba kama maarmo toobad nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wassalaam ayaa tilmaamaya axaadiista saxiixa ah akthar min 70 mara aw 100 mara inuu toobad keeno isagoo macsuum oo ilaahay doortay isagoo ilaahay rasuulkiisiiya فما بالك dadkeena ka hooseeya maxaad u malaynaysaa marar badan cibaadadeena u baahan laga istighfaalaysto oo aanu cuntamin wax ilaahay la hortagaba inay noqoto inay dambi ka rogto daaye walidaalka baa in badan waxaad arkaysaa nusuusta istighfaartu cibaadaadka dabadood bay soo aroortaa salaada markaynu tukanno markaad salaama naqsataa lagu yiri waxa ugu horeeya aad tiraahdo ha noqdo maxay astaghfirullah 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 cibaadada samaysan maxaad ka istighfaalaysanaysa yani waxaad garanaysaa wax rabbi lala waajahay inaanay ahayn intii yaraydaadi ma ka samaysay dabeetana waa jabraanu naqs wixii gaabnidaadi baad rabtaa inaad ku dhammaystirto marka gan walaaladan waqtiga u soo koobayaa waxaan ku gabagabeynayaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam saasuu inoo tilmaamay wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuha sayi'aadka tirada badan la aynu samaynayno xasanaat inaynu ka dabageyno wardi ha noqoto quraan la akhriyo ha noqoto dacwo la sheega ha noqoto salaad la tukada ha noqoto dikri kaloo lala yimaado ha noqoto khayr inaynu ka dabageyno ilaahina wuxuu inoogu tilmaamayaa aayadku sheekhu akhrinayay ina alxasanaati yudhibna asayi'aat saxaabigaa gabadha soo dhunkaday ee dhibtu ka dhacdayna markii uu la tukaday waxaa la yidhi miyaadna la tukanin haa buu yidhi bes waa kugu filantaa loo tilmaama wuxuu yidhi ma keligii baa iskale arrintaa
ما يبو النبي عليه الصلاة والسلام بل لجميع أمتي كله ومضى يدور دم بايسكاله سيئة سين توبا لقد بدقيا ووحى إسلامك كجسوا عيني هيبان ورنكرنا الدين بدن الدنيا ديال كريستيانتي وحينا لي نبي آدم دنبقو قالي يا عيسى لو دلدلي سوء خطيئة وقم يله إنك القرآن كوكو ولا تزر وازرة وزر أخرى آدم وحي وقال يعدك الله ما هيست أنا واحد قال يعدك الله ما هيست لكن إلهي باب كاسي توبض وينفري هي حسنات